Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb kula kulmay safiirada qaar ka mid ah dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ee saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo wakiilada hay'adaha caalamiga oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb. Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlay dadaalada Ra'iisul Wasaare Khayre hormuudka ka yahay ee lagu dhisayo Galmudug loo dhan yahay oo ay ka qayb qaadata horumarka dalka iyo guud ahaan gaaridda himilooyinka ummadda Soomaaliyeed sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo doorashooyinka. Mas'uuliyiintii kulanka ka qayb galay ayaa Ra'iisul Wasaaraha ku bogaadiyay dadaaladiisa ku aadan dhismaha hay'adaha dowlad goboleedka Galmudug, qaramaynta ciidan deegaanka iyo isu diyaarinta xoreynta deegaanada argagixisadu kaga sugan yihiin Galmudug. Kulanka oo ay goobjoog ka hayeen xubno ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha gudaha, amniga iyo madaxa fulinta Galmudug ayaa inta uu socday waxaa looga dooday dardargelinta dadaalada Ra'iisul Wasaare Khayre ee ku aadan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo mas'uuliyiintii ula kulmay uga warbixiyay heerarkii kala duwan ay soo mareen dadaalada lagu dhisayo Galmudug ayaa ka codsaday inay la bartibaaraan taageerada iyo garab istaagga Soomaaliya si guul wax ku ool ah looga gaaro dhismaha hay'adaha dowlad goboleedka Galmudug. Mas'uuliyiinta ka socday beesha caalamka ee Ra'iisul Wasaare Khayre kulanka kula qaatay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, Midowga Afrika, IGAD iyo safiirka Midowga Yurub, safiirka Qatar, safiirka Turkiga, safiirka Itoobiya, safiirka Talyaaniga, Norway iyo Kenya. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriyo oo warbaahinta la hadlay markii kulanka uu soo dhamaaday ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay ahmiyadda kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay. Wafdigu saaka markuu yimid waxay kulan la galaan markii ugu horeysay Ra'iisul Wasaaraha. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu uga bixiyay oo soo gaarsiiyay howlihii ka dhacay Galmudug muddadii bishaheeda uu joogay iyo dadaaladii uu galay. Wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta Galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado iyaguna ay gacan ka geystaan. Safiiraduna mid bay u hadleen waana ka mahad celiyeen soo dhaweynta iyo invitationka waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragal dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya wafdiga uu hogaaminayo ayaa maalintii 29aad waxa ay deegaanada Galmudug u joogaan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo sal adag leh loona dhan yahay oo xiriir wada shaqayn oo wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya si looga wada shaqeeyo horumarinta deegaanada Galmudug oo Soomaaliya muhiim u ah. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.